dadweynaha ku dhaqan xaafadda Garbada ee magaalada Burco ayaa cabasho ka muujiyay wada la'aan soo wajahday xaafadaasi. Dadweynahan ayaa sheegay inay baahi weyn u qabaan wada banayn lagu sameeyo xaafadaasi, waxayna dawladda hoose ee degmada Burco ugu baaqeen inay wax ka qabato cabashadoodani, iyaguna soo bandhigay dhibaatooyinka ay ku hayso wada la'aantu. Waa kuwan dadweynaha oo arrimahaasi ka hadlaya. gurigii gubtay wax meel dabdab iska gala male, kii biyo soo geli lahaayeen booyad soo geli lahayd meel ka soo galaan male, kii qof ku dhintay meel laga kala jeesto male, hadduu soo meel isa soo taago luqluqaba marka maydka faraha lagu qaadaya meel wadada la geynaya. waxa weeye dhibaato aad iyo aad wadada ugu jirta ayaanu qabnaa. hanaloo eego dawladdu waxa ka qabato dadkan danyarta ah ee meesha ku nool biyo la'aan baba hayso haraad loo waqtiyeena dadka hal eego. aniga gurigayga waa lagu dhintay maydkii faraha ayaa laga qaaday, waxa la geeyay meel marka timaadana arki doontaan. marka waxaan ka codsanaynaa dawladdu inay noo samayso wado haday tahay dawladdeedii. halkan waxaan maanta u taaganahay oo aan isugu nimi wadooyinkii xaafadda Garbo oo go'an dhammaantood oo wado lugeed mooy aan wado kale la maraana jirin. marka waxaan leeyahay si dhaqso ah waxa looga qabto wadooyinka go'an. mayd hadii uu dhinto helicopter ilaa laga qaadimayo wadanka ileeyada dawladka ah waa inay wadooyinka noo furto, sidaas aan ka codsanayna. hadii dal ilaahayba uu dab kugu dhago meel uu gaari ku soo mara male. horta dawladdan dooranay weeye marka hore waxaanu doonaynaa cid nolol ka saaro wadooyinka oo dhan way xidhan yihiin, tan way xidhan tahay, xigtaan way xidhan tahay. maalmaha kamid oo dhaweyd waxa gubtay guriga nimanka dhabarka inagu haya, damdamiskii meel ka soo gala ayuu waayay. ilaahay baa ka baqtiyay xaafadda, wax badan oo khasaaraha bay keeni lahayd. sidaa awgeed waxaan u baahannahay inuu yimaado oo soo eego maayarka magaalada xaafadan oo wadooyinkeeda iyo wixii macquula ee u bixi kara uu isagu gacantiisa iyo indhihiisa uu ku arko. waxaan dawladda hoose ka codsanaynaa inay noo furaan wadooyinka oo meel meyd laga saraan lahayn. Shaafici Maxamed Ibrahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.